إلهي وحينا سي سبحانه وتعالى maskaxdani aad bay u yartay jidhkeena marka lagu miisaamo bay dhaahdaan waa 2.5% wasniga jidhka ay dhaahdaan waa 1330 gram meelahaas bay ku tilmaamaan isku celcelintu kiilo iyo xogaa yar way maskaxda kugu jirta haweenkana bay dhaahdaan raggu 40 gram buu ka weeyay yani isku celcelinayna 40 gram bay ka miisaan yariyeen maskaxdaasi waxay isticmaashaa baa la yiraahdaa jidhku waxaad oxygen neefsato oo dhan dib u jiido rubuc kamida kaligeed baa cunta halaali waxaad oxygen cabto rubuc kamida maskaxdaas cabta maskaxda waxa ku jira balaayiin unugya ah maskaxda inugu jirta waxay dhaahdaan 22 decimeter ka taqaanay centimeter ma hoos uga sika decimeter 22 decimeter oo murabbaca yani square 22 decimeter intuu leeyahay somewhat meelahan buu leekaanaya waa wax aad u yar centimeter waa decimeter 22 decimeter oo square oo maskaxda bini aadamka ka mid bay dhaahdaan waxa ay qaadi kartaa 20 milyan oo volume ama book inta ku qoran bay qaadi kartaa ma u malaynaysaa in awood inta leegaad wadato waa 22 decimeter in kamid oo maskaxda sidata kamidi waxa ay qaadi kartaa bay leeyihiin 20 milyan oo mujallad oo mutawasit alxajmiya waxay ku tilmaamaan مثلا أحد العلماء وبروفيسور كلا مارك روزيزن وكم من علماء مسكحة دراسيسة جامعة كاليفورنيا سنوات بدن بو دراسيني كذبوا حليه هي هديبوا يري مسكحة بني آدمك مالين كستا 10 معلومات في الثانية الله شيء قبوا لي سكند كستا 10 شيء هدي الله شيء قبوا لي سكت كوال برقسي هل كان بالنسبة لحدا سكنه سكند كستا أما ثانية كستا أو كم إذا نلاش قفك هدي الله شيء قبوا لي 10 شيء 10 معلومة الله شيء مدة لحدا صنادات اللقوة ده habeen iyo maalintoona aan la kala joojin waxaad qiyaastaa second kasta 10 baa lagu sheegayaa shay 60 sanadood baana lagu wadayaa habeen iyo maalinbana waa lagu akhrinayaa wuxuu leeyahay macluumaadkaasi maskaxda bini aadamka ma buuxinayaan 1 على مليون من حجم العقل بوليه 1 على مليون من حجم العقل sida daraadeed bay waxay ku tilmaamaan insaanku maskaxda ku jirta awoodda alla siiyay maba isticmaalo bay leeyihiin 10% mooyaane boqolkiiba 10 ayuu ka isticmaalaa bay leeyihiin waxa lagu tilmaamaa qoladan computersku waxay ku xisaabtamaan gigahertz inuu processorku inta uu gigahertz uu per second jari karo waxay yiraahdaan maskaxda bini aadamku 400 مليون عملية حسابي في الدقيقة سمين كرتها waxay ku tilmaamaan maskaxda bini aadamku 30 bilyan macluuma ay fi thaniya mu'aalaja ku sameyn kartaa yani computer dunida yalla saamo ma qabto waxa lagu tilmaamaa maskaxda bini aadamka iyo xidhiidhada unugyadaadu leeyihiin 600 mayl cable iyo wire-ka la dhigi karo ayaa u dhaxeeya bay leeyihiin iyada xidhiidhadeeda dhaakiraduna waxay ku xidhantahay bay leeyihiin inta xidhiidh ay sameeyso waxay ku tilmaamaan ahad ulama ba wuxuu leeyahay haddii buu yiri dunida waxa TV iyo telefisyon iyo raadar iyo telegraph iyo telecommunication waxa wax lagu xidhiidhiyo dunida yaala haddii inta la yareeyo buu yiri aqliga bini aadamka kale loo ekaysiiyo waxa soo dhan waxa iskaga badan buu leeyahay bini aadamka maskaxdiisa yani all telephone dunida yaala waxa laaliyo waxa switch dunida yaalo la isku daro maskaxda adiga ku saaran intay process gareyn kartaa ka badan sida daraadeed ayu ahad ulama waxa uu ku tilmaamaya haddaynu isticmaali lahayn buu yiri xaasuub ama computer maskaxda uun bal ku dhow haddaynu isnaana sameeya waxa dhici lahayd buu inaynu sameeyno guri 10 dabaq ka kooban oo 770 mitir square ku yaala buu leeyahay
يعني بني آدم كيبلديسي وحي سادوس ku xidhxidho computer aad tiraado maskaxdan yar adiga Ilaahay kugu rakibay shaqaday qabato wax u eeg wax qaban kara in la sameeyo waxay qaadan lahayd buu leeyahay xajmiga 770 mitir square oo 10 dabaq kor loo dhisay xajmi xaasuub leeg buu leeyahay barnaamijyadiisa imisa la sameyn karaa buu leeyahay taayada reeba يعني برنامجku ku shaqeyn lahaa inta lagu sameyn karayo iyada reeba waxa meeshii yaala wuxuu yahay taaqada inugu jirta inta ay leeg tahay iyo waxaynu ku isticmaalnaa aad u kala yar idan inagu waxaynu shaqo ka dhiganay taaqada inta leeg ama awoodda inta leeg inaynu caatilo oo aanay waxba qabanin